maariish xalay waxaan filaa Mm. inaad soo wada gasheen adiga iyo jack. waxaan daawaday muuqaal lifekiina laga duubay oo labadiinoo murmaya ah. dad badanaa waxay u fasirteen siyaabo kala duwan. صح. falcelintii dadka ka timid qaar badanoo waxaa arkay adiga ku taageeraya, qaar kaa soo horjeedo. adiga iyo jack oo laba qof oo la isku kiin barta, dadku isku kiin barteen, isku kiin ogaayeen, soo wada shaqeeyey, in heerkaas aad isla gaartaan xalay maxaa sababay? سؤال في عن هرتا إن وحسا وين مجرين وحيرو إسكا إيزي أهد لكن دادك قاركود أفل علين تكديبنا داد وحاجرة لايف كداونايي oo bilow ilaa dhammaan la socday iyo dad wixii la soo jarjaray oo muusig qiiraa la saaray oo la macmacaaneeyay oon arkay ma fahantee صح. so horta anaka dood baa gameka anakoo dheelayna camal ah hadal isku keenay hadalkaasna wuxuu iska ahaadee hadal iska common oo wax iska normal ah fikirkiisu asaga ka hadlay ana fikirkaygaan ka hadlay kadib like xoogaa adiga doodiyaa nala dheeraatay dee qasab maaha inay labada qof isfahantay moogta mararka qaar isfahan waa ama misunderstanding wuu dhici karaa so waan is yara fahmi weynay markaas yara fahmi weynayna si xoogaa disrespecti ah oo yara jees camal ah buu u qosqoslay markaas waxaan ku idhaahday waa laga fiican yahay qosolka bilaa maalayacniga ah anakoo ka hadlayna wax serious topic ah ma fahanti صح. maanta adoo ila hadlayso ani dooda naga kululaatay haddaan kugu qosqoslo oo meelaha aan fiirfiiriyo qosolka maxaa ku qoslaysaa jis caadi ila hadal waa idhahay moogtaa normal waay ها. so ani intii laan dhahay kadibna dadka intii wax kale u fasirteen like